mid ka mid ah beelaha dega ismaamulka Itoobiya ayaa dhaliil u jeediyay madaxweynaha dawlad deegaanka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar warkaasi waxa magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka inooga soo diray wariyaheena Maxamed Cali Shuuto kulankani oo ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha bulshada sida aqoon-yahanka salaadiinta dhalinyarada iyo haweenka jaaliyadda beesha Jidwaaq ayaa waxa ay hoosta ka xariiqeen waxgaradkii ka hadlay madashaasi in ay jiraan cadaalad darro iyo musuqmaasuq ay ka tabanayaan maamulka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana kulankaasi lagu taageeray go'aamadii guddiga mideynta beesha Jidwaaq oo ka mid ah beelweynta degta dhulka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Bashiir Garaad oo ah aqoon-yahan ka tirsan guddiga qabanqaabada kulanka ayaa faahfaahinaya ujeedada kulankaasi hadafka kale ee shirkan uu lahaa waxa ka mid ahaa sinaansho inaan rabno sinaansho cadaalad siman oo kaliya Jidwaaq ahayne waxa ugu daran qoysaska reerku maamulka hadda haya qayb ka mid ah ayaa ugu daran ma jecli inaan qabiil sheego jeclahay inaan kor uga koro laakiin waxaan tusaale u soo qaadanayaa dhagax buur dhibaatada ugu badan ee deegaanka Soomaalida ay degto ku dhacday waxay ku dhacday gobolka dhagax buur runtii wax laga yaqsado weeyaa runta waan ognahay dad waaweyn baan nahay wax qariya wax qora xaqaaqiga og dhibaatadu koona to koona cirif ilaa cirif daraf ilaa daraf dhibaatada caburiski ugu jira in la sheego oo la tilmaamo ceeb ma ahan madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo dadka u shaqeeya ee hadafku ka lumay ee isagana laga yaabo talada qaldan inay kula taliyaan ee laga yaabo tilmaan qaldan inay sameeyaan iyaga oo ka raadsanaya shilin iyo jago iyo shaqo waxaan rabnaa in la nadiifiyo oo laga tanaasulo inay taasi dan ahayn intay ku soo moodi kareen ku qayli kareen ama ay mushaar ku qaadan kareen way sameeyeen sidoo kale Suldaan Maxamed Bide ayaa isna ka hadlay madasha kulankaasi waxa uu yiri salaanka bacdi walaalayaal ilmaadeerayaal tolkay dhammaan waa idin salaamaya halkan waxa fadhiya guddigii golaha midnimada Jidwaaq oo runtii ah haliyay u soo dhashay ummadda Jidwaaq iyo ummadda dhammaan dawlad deegaanka Soomaaliyeed ku aftirsada runtii guddigani waa guddi waqtigoodii iyo mataqaanaa muxuu maalkoodii u horay sidii ay mataqaanaa muxuu uga arinsan lahaayeen sidii ummadan mudiga looga saari lahaa midnimadooduna ay noqon lahayd mid muqaddasa runtii waxaan hubaa markii in badan aan ka hadlaynay arrimahan oo mataqaanaa muxuu waxyaalo far badan sidoo garaadku sheegay telefoonno badan hagadaamooyin badan nalga hor keenay waxay go'aan ku gaareen nimanka halka fadhiya inay mataqaanaa waxa u dhigayaan telefoonka iska xidhaan dhagaa ka xidhaan cid kasta iyo meel kasta laga soo taago oo istaagaan inay mataqaanaa muxuu ahaa dhabaha cusub u hal muxuu ahaa u tusaan beeshweynta Jidwaaq ummadda kale ee Soomaalida degan deegaankana runtii ay mataqaanaa muxuu u hara qaadaan in dulmiga saaran maanta la iska qaadi karo waxaynu ognahay runtii nidaamka siyaasadeed ee ka jira deegaankeenu inuusan ahayn sidii inagu shacab ahaan iyo ummad ahaan aynu u dooranay waxaad ogtihiin xusbiga shacabka dimuqraadiga Soomaalida Itoobiya wuxuu ku yimid mideyntii xusbiyadii markaa jiray deegaanka ee xusbigii Lego iyo xusbiga ONLF ee markii nabadda qaatay heshiiskii la gaaray runtii heshiiskii la gaaray wuxuu ahaa in beel qaybsiga ama mataqaanaa ummaddu si mataqaanaa siman loo qaybsado maamulka iyo systemka jira ugu dambeyn waxaa loogu baaqay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya in ay ku dhaqanto dastuurka iyo sharciga isla markaana xorriyadooda ay dib u siiso siyaasiyiinta iyo shacabka ku jira jeelasha xabsiga Maxamed Shuute RTN TV magaalada Minneapolis